madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa min hal gaari ku abaalmariyay wiil iyo gabadh kaalinta koowaad iyo talabaad ka kala galay tartanka Quraanka Kariimka oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland. Warbixintani waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Xasan. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa laba gaari ugu deeqay ardaydii ka qayb gashay tartanka Quraanka Kariimka kaalmaha koowaad ka galay munaasabadani lagu soo gabagabeynayay tartanka Quraanka Kariimka oo in muddo ka socotay magaalada Kismaayo ayaa waxa ka soo qayb galay culimooyin mas'uuliyiin ka socotay maamulka Jubbaland odayaal waxgarad iyo hooyooyin ugu horeyntii waxaa halkaasi munaasabada tartanka Quraanka ka hadlay gudoomiyaha mu'assasada Asma oo ahayd mu'assasadii tartankani soo qaban qaabisay isagoona sheegay in ardayda dhigata madaarista ku taala magaalada Kismaayo tartankani ay ku tartamayeen soo tartami doona waxay noqon doontaa ardayga ugu dambeeya oo jaayisada helaya inuu noqdo arday tartamadii dhama ku soo guuleystay oo kii ugu dambeeyay sida ku qaaday maxay yeelay jaayisada hadda meesha lagu bixinayo wax sahlan ma aha bil xaqiiqa marka laga hadlo oo dhulka qaarkii maba laga bixiyo waxa hadda jaayisa maanta aan ku bixin doonaa laba gaari iyo lacag ilaa gaaraysa $7,000 ku dhow ayaan jaayisa ku bixinaa marka jaayisada inta la eg ma noqon doonto wax ardaygu si fudud hal jeer intuu fadhiistay quraan akhriye kaliya inuu ku heli doono ma dhici doonto insha Allah. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha cadaaladda iyo diinta oo madaxweynaha Jubbaland wakiil uga ahaa gudoominta labada gaari ee loogu talagalay in la siiyo labadii arday ee kaalimaha hore ka galay tartanka Quraanka Kariimka iyo waalidiintii dhashay iyo macallimiintii wax soo bartay iyo muslimiinta ka soo qayb gashay dabaaldega aan u dabaaldegayno khitaamka Quraanka Kariimka waxa aad u wanaagsan bishii waxaan ku jirnaa quraanka soo degay شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في شاسان كجرنا وبشي قرآن كأسوي إسكالها وحن كجرنا بشي الرحمة هي مغفرة هي عتق من النار نار الإسكفرية وحن إله كبرنا سبحانه وتعالى إن النار تنقوى حرية لما المسلمين صمتي bishan kitaabkeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu daro kuwa naarta laga xoreeyay laga aqbalay soomkeedii iyo qiyaamkeedii waa idin akhrin maayo culimadii baa hore idin ku sheegtay bishan maalmihii fadliga badnaa inaga 10 awaakhir min Ramadaan baa lagu jiraa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee Jubbaland Macallin Maxamed Ibraahim aad iyo aad farax weyn oo tahay maanta waan ku faraxsannahay jalsadan baan ku faraxsannahay masaajidkan la isku imaadan ku faraxsannahay barnaamijka la isku imaadan ku faraxsannahay wax yaraan dib u noqdo waxaad ogtihiin dugsida quraanka oon rabaa inaan dawladana aan u sheego dugsida quraanka dhul kuma leh meelay degaan ma leh waxaad ogtihiin waxaa la arkayaa nin islaam oo shantiisa waqti quraanka akhrisanaya oo ilaahay oo baahan waxaa la arkayaa ninaan ilaahay ogolayn oo dhargaya waxaa arkaysaa dugsi quraana oo ooda hoos ku yaalla iyo madraso weyn oo ku kordhisan maxaa guddiga garwadeenka ka ahaa tartanka Quraanka Kariimka ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ayaa ugu dambeyntii soo bandhigay natiijada ka soo baxday tartanka Quraanka Kariimka qolka eebe soddonka jusa waxaa ugu horeeya gabar magaceeda la yiraahdo Faiza Khaliif Abdullahi oo lambarka koowaad gashay waxaa ku xiga oo lambar 2 galay محمد عبد الله آدم لمبر 3 waxaa galay 30 juz ee Quraanka Kariimka عبد الحكيم عبد الرحمن عبد الله
waa 30 juz saddexda arday ayaa gashay 15 juz haddaan u gudbo lambarka koowaad waxaa galay cabduraxmaan yuusuf dirir lambarka labaad waxaa isla galay 2 arday gabar iyo wiil gabadhu magaceedu ismahaan cali mahad wiilkuna waxaa la yidhaahdaa moxamed axmed cali lambar 3 waxaa galay gabar iyaduna foos cabdulcasiis moxamed haddaan u gudbo qaybta 10 juz waxaa galay lambarka koowaad najma aadam cabdullaahi lambarka labaadna moxamed xuseen axmed lambarka saddexaad ee 10 juz cabdulxakiim sheekh maxamed khadir 5 juz haddaan u gudbo ardayga koowaad waa maryama maxamuud cabdullaahi lambarka labaad zakariya moxamed cumar lambarka saddexaad 2 arday baa isla gashay shaafici cabdulqani moxamed iyo axmed moxamed abubakar si kastaba ha ahaatee madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ballanqaaday sanadka dambe ardaygii kaalinta koowaad ka gala in asaga iyo labadiisa waalid xajka la geen doono insha allah aadan maxamed xasan aadiyare Somali Channel Kismaayo.